asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xihan janalkeena. maxay ahayd sababta uu nebigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam uu inooga reebay in qofku uu keligiisa seexdo guriga dhexdiisa? waxaa nebigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay in uu reebay in qofku uu keligiisa dhex seexdo gurigiisa. waxaa axmed musnadkiisa ku sugan xadiis uu wariyey ibnu cumar radiyallaahu canhuma oo uu ku sheegayay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay kelinnimada. wuxuu rasuulku reebay calayhi salaatu wasalaam in qofku uu keligiisa meel baryo ama in uu safar galo keligiisa. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبدا ولا نام رجل في بيت وحده. wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, haddii dadku ay ogaan lahaayeen dhibka ay leedahay kelinnimadu, ma jiri lahayn qof habeennimo keligiisa safar aadaya, sidoo kale ma jiri lahayn qof keligiisa guri dhex seexda. inta badan qofka keligiisa seexda waxaa la arkaa in uu yahay qof murugaysan. waxaa qofkaas ka tambadinaya walwalka iyo walbahaarka iyo fekerka iyo hurdayarida. waana arrin aad u halis badan oo uu shaydaanku u isticmaalo si uu dad badan ugu sababo xanuunada maskaxda ama dhimirka iyo jirkaba. kelinnimada iyo murugta iyo walwalka iyo walbahaarka iyo hurdayariduba waxay ka mid yihiin waxyaabaha aanan wanaagsanayn. waxaa in badan la arkaa in qofka wakhti dheer keligiisa fadhiista in shaydaanku uu u yimaado oo uu ku cayaaro maskaxdiisa. shaydaanka ayaa murjiya, wuxuuna soo hordhigaa dhibaatooyinka iyo dhammaan waxyaabaha murugada leh ee adduunyada dhex yaallay. wuxuuna shaydaanku qofkaas dib u soo xasuusiyaa dhacdooyinkii murugada lahaa ee uu horay u soo maray ilaa uu xaalkiisuba sidaas iska noqdo. wuxuu sidoo kale shaydaanku ku sababaa in uu dhibsado dadka kale oo uu ka shakiyo xitaa dadkii ugu dhowaa dadka. haddii uu qofku muddo dheer maskaxiyan sidaas u xanuunsadana, ugu dambayntii wuxuu saamayn ku yeeshaa xubnaha kale ee jirkiisa. waxaa inta badan la arkaa in jinniyaashu ay degaan guryaha cidlada ah oo aysan degganeen bani'aadamku. waxaase si uusan shaydaanku sidaas u samaynin looga hortagi karaa in ugu yaraan 3 habeenba hal habeen guriga dhexdiisa lagu akhriyo suuratulbaqara, iyo in la joogteeyo guud ahaan adkaaraha akhrintooda. gaar ahaanna waa in habeen walba la joogteeyo akhrinta adkaarunnawm ama ducada hurdada iyo suuratul-ikhlaas ama qul huwa allaahu axad iyo mucawadataynka ama qul acuudu birabbilfalaq iyo qul acuudu birabbinnaas. iyo in habeen walba la akhriyo aayatulkursiga iyo 2 aayadood ee ugu dambeeya suuratulbaqara. shaki kuma jiro in joogtaynta adkaaruhu ay qofka muslimka ah dhufays u yihiin oo ay ka ilaalinayaan shaydaanka. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. guryihiina ha ka dhigina sida qabuurihii oo kale, maxaa yeelay shaydaanku wuxuu ka cararaa guri lagu dhex akhriyo suuratulbaqara. xanaabiladu waxay yidhaahdeen ragga iyo dumarkaba qof walba waxaa looga baahan yahay in uu raadsado qof uu la baryo si uu uga baxo kiraahiyada. balse qofka aanan awoodin wax dembi ah dushiisa kuma lahan in uu seexdo keligiisa. sidoo kale wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaga reebay in qofku uu safro keligiisa.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كنت في موضع كذا وكذا فمررت بمقبرة، فخرج علي من قبر طالب ومطلوب، في يد الطالب مطرقة أو مرزبة من حديد، وفي عنق المطلوب سلسلة، فضربه الطالب على رأسه بمطرقة فدخل في الأرض، ثم نجم من مكان آخر، فعاد شعر رأس الرجل ولحيته بعد سواد أبيض. فقال عمر: لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده أو يبيت في بيت وحده. Allah ka raali noqdee ibnu cumar ayaa waxaa laga wariyey in uu yidhi: nin baa maalin maalmaha ka mid ah intuu Cumar ibnulkhataab u yimid wuxuu ku yidhi: anigoo ku sugnaa meeshii noocaas iyo noocaas ahayd ayaan waxaan soo maray meel qabuuro ah. kadibna waxaa mid ka mid ah qabuurihii iga soo dhex baxay laba nin oo mid ka mid ah uu gacanta ku sitay burrus bir ka samaysnaa, halka midka kalena ay silsilad qoorta ugu xirneyd. markaas buu ninkii burruska gacanta ku haystay ninkii kale madaxa ooga dhuftay, markaas buu dhulka dhex galay, kadibna wuxuu ka soo baxay meel kale. markaas bay ninka timihiisii madaxa iyo kuwii garka ee madownaa waxay isku beddeleen kuwo caddaan ah. kadibna wuxuu yidhi Cumar radiyallahu canh: taasi waa sababta uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u reebay in qofku uu keligiisa safro ama in uu keligiisa guri dhex seexdo. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiira geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.